وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. intaa kadib waa hordhicii afaraad weeye. hordhacan waxaynu iska hordhigaynaa kelimada tawxiid. kelimada tawxiidku sidaynu ognahay waa kelimada qofka uu diinta islaam kusoo gala wey. waa kelimo u baahan in cilmi iyo aqoon loo yeesho wey. diintoo dhanna iyada ayaa asal u ah. qur-aanka ka bilow min faatixo ilaa bilabinaasgee waa sharax la sharxayo kelimada tawxiid. taana waxaa caddaynaya alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay suuratul kahf isagoo nabi maxamed la hadlayo qof walboo muslim ah, qul waxaad tidhaahdaa inamaa ana basharun, anigu bini aadan baan ahay, milukum idinkoo kalaan ahay, yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid, waxaa uun lii waxyoodaa ilaahayiin inuu yahay hal alla oo keliya. kelimada tawxiidka iyadoo qaabab kala duwan bay qur-aan ku soo aroortay. qaababka faraha badan ay ku soo aroortay waxaa ka mid ah qayb ay ambiyada ilaahay iska wada wadaagaan ay ku wada dhawaaqaan oo ah yaa qowmi icbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru. maadaama kelimada ay saa u qoran tahay waxaa muhiim ah bal inayn dul istaagno labadaa kelimood, ilaahnimada waxay tahay iyo cibaadadana laga doonaya waxay tahay. yaa qowmi icbudullaah, cibaadadu waxay ku taagan tahay laba shay. cibaadadu waa laba shay bay ku taagan tahay. kow waa baryo, inaad ilaahay barido baa lagaa dooni. oo qofku marka intuu kaco ilaahay keyrkii uu baryayo, ama ha ahaado asnaam ama awliye ha ahaado, macnaheeda waxaa weeye hebel hebelow ama sanam hebelow, ilaahay wax nagu filan waynu ka weynee ada waxna sii. taasoo macnaheedu tahay beelka dhac iyo aflagaado iyo afxumayn ilaahay lagula kacay. dhanka kale abaara dhacayo, dhibaatooyin baa imaanayo, meesha ilaahay la bari lahaa, ilaahay loo carari lahaa baa waxaa leeyahay dowladaha deeqda bixiso gargaar hana siiso, hay-adaha samafalka hanoo soo gurmadaan. macnaheeda waxaa weeye hay-adow iyo dowladow ilaahay wax nagu filan nooma hayee na garab qabta, na garab istaaga. ilaahayna subxaanahu watacaala waa ka hufan yahay inuu addoommadiisa waxay ku noolaadaan uu siin waayo. waxaasoo adduun makhluuqaad nool ee wada taagan ee wax cunayo xaggee waxaada keenan waa deeqdiisa wey. marka cibaadadu arinta koowaad ay ku taagan tahay waa adducaa. nabigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adducaau huwa alcibaada aw adducaau mukhu lcibaada. marka cibaadada la sheegayo waa ilaahay la baryo wey. arinta kaloo labaad ay cibaadada ku taagan tahay waxaa weeye adaaca, hogaansamid, tala qaadasho weeye. ساويت آخر مركز تقولي وحولي ذلك قال مركو الله لي وامتازوا اليوم أيها المجرمون كوين دنبيلاش وبلنا أصعما حال لي ألما أعد إليكم ورصادهم كل مدر دار من ألا تعبدوا شيطان تلأوا لي إننا قادم وبمعنى الطاعة. نبي الله إبراهيم أبيه مكل هذا وحيري يا أبت لا تعبدوا الشيطان أبو شيطان تلأوا لي حقادني ninka madaxweynaha ee boqorka ah dadka ku hoos nool ee boqortooyadiisa hoos jooga saddex qolo
gurigiisa ka shaqeeyaan wixii cuni lahaa iyo dharkiisa ay diyaariyaan qolana hantida uu leeyahay ayay daryeelaan oo xanaaneeyaan oo ilaaliyaan qolana waxay u taagan yihiin awaamirtiisa inay fuliyaan oo ay adeecaan taliisa qaataan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay laba idinka mar raba hal baa idinka raba Allah wuxuu leeyahay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinni insi uma abuurin mooye in ay iga tala qaataan talada inay qaataan baan u abuuray ma uriidu minhum min rizqin irsaaqad ka dooni maayo boqortooyada balaaran ay iga shaqeeyaan ka dooni maayo wama uriidu minhum an yud'imun inay waxa iqoodiyaan ka dooni maayo waxa markii Ilaahay naga doonayo waxa weeye waa in Allah subhanahu wa ta'ala aynu u tal dhaga nuglaano ka tala qaadano warkiisa iyo amarkiisa haye aan niraano marka cibaadadu waa labada shay weey ambiyada Ilaahay markii la yaa qawmi ibadullaah Ilaahay hal aabudu macna waxa Ilaahay hal bariyo kaligi hal laga tala qaato weey malakum min ilaahin ghayru cid aan isaga ahayn oo Ilaahay idin ah in haba yaraatay ma jirto ilaahnimadu macnada iyadana shan macna ku fadhidaa macnaha koowaad waxa weey waa ducaa waa in Ilaahay kaliya bariyo Ilaahay kaliya gacmaha loo horso arinta kale labaad waxa weey adaaca inay loo hogaansamo arinta kale saddexaad waxa weey in Ilaahay aynu nolosheena isaga ku halayno isaga tala saarno quraanku waxa ku badan Ilaahay tala saarta su'aal baa meesha iimaanayo ciidan Allah ahayn oo nolosheena ku tiirsan tahay miyaa jirto jawaabtu waa ma waxay wax walba u baahan isaga noo hayo haddana waxa la Ilaahay tala saarta macnaheedu waxa weey Ilaahay markuu ku abuurayay malaa'ikta kala mutashan rag baa laga dhigay dumar baa laga dhigay madee laga soo saaray madee lagu daray taacina lama weydiin malaa'ikta lama weydiin adil lama weydiin waalidka lama weydiin macnaheedu maxay markuu Ilaahay ku abuurayay cidna kala muusan tashan adigana waxa la doonayaa marka aad Ilaahay u hoggaansamayso oo rabto inaad Ilaahay raali geliso cadow fara badan baa jira oo kule Ilaahay hadaad raali geliso waynu ku dilaynaa waynu ku xiraynaa ana qawateen baa lagu sameyn Ilaahay markuu wuxuu ku leeyahay aniga oo kaliya noloshaada aniga halay gabgabtan ee gaalada wadaan waa lagu dilay waa lagu xiray intay ka bixi waxa dhagka u dhigin aniga raali geli ani bas noloshaada wixii kale aniga halay Allah wuxuu leeyahay alaysa Allahu bikaafin 'abda wa kaalay Ilaahay doonkiisa kuma filna miya macnaheedu waa ku filayaa yaa waa cid markaad Ilaahay raali gelisay intay soo orday Ilaahay galaashiis kala soo bixi karto yaa waa ma jirto marka arin kale saddexaad ee ilaahnimada ku taagan tahay waa in Ilaahay tala saarto arinta kale oo ilaahnimada ku taagan tahay waxa weey waa in Ilaahay aad jeclaato suuratu tawba Ilaahay wuxuu inoo sheegay 8 arimood qul in kana abaakum wa abnaakum la sawwa ahabba ilaykum min Allahi wa rasuulihi wa jihadin fatarabbasu hada 8 arimood aad Ilaahay iyo rasuulkiisa jihadka ka jeceshiin hada waxa la suga maxaa la sugi ciqaabi dhib Ilaahay baa la sugi marka waxa la doonayo waxa weey inaan Ilaahay jeclaano Ilaahay inaad jecesha xagee ka muuqani qof walba musadil Ilaahay ma jecesha Ilaahay waan jecel kulay laakiin Ilaahay jeclaantiisa waxay ka muuqanaysaa sideebaad isaga u raali gelisaa raali gelintiisa halkaad ka qaadanaysan waxa weey sideebaad quraanka Ilaahay oo la nooshahay ma barata ma fahamta waqti ma ku bixisaa juhdi misku geysa inaad bal kalaamka Ilaahay fahamto hadaad quraanka Ilaahay jeceshahay oo waqti ku bixiso hataa waxay cadeen u tahay Ilaahay inaad jeceshahay hadii kala hayn waa jeclaanta waa afwe arinka ka dambeeyo waxa weey waa al-khawf waa in Ilaahay ka cabsato Ilaahay inaad ka cabsato waayo ciqaabtiisa uma baleerikas hadii uu balaay kugu salado ciidan isaga inuu ka gargaari karta mare marka cabsida Ilaahay waa inay kugu bixisay inaad Ilaahay isaga kali jeclaato isaga kali u hoggaansanto isaga kali aad barido weey marka kelimadaas weyn lama doonayo inay ka ahaato waa la ilaaha illa dadkan ka maqli jiray abayaal baa laga soo gaaray waa tawxiid taqliidi cid kale laga dawdaynayo Ilaahay ma ogola إلهي نرالي كما الله سبحانه وتعالى وحوليه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك كلمة لاس يا وحا أي حنبار سنتها يا وحا أي كنسانيسو أقون يا علمي قوله
iyada oo aad barataa waxay kaa doonayso waxay xambaarsan tahay iyadaas baa cilmi ah iyadaaba aqoon ah iyadaaba mudan in waqti iyo juhdi iyo dadaal la iskugu geeyo oo lagu wada bixiyo halka ayna u eg tahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu